موسى بيحي عبدي مدحوينها الصوماليلان oo ay wehelinayaan taliyaha ciidamada bilayska Soomaaliland iyo maayirka caasimadda Hargeysa ayaa waxa uu kormeer ku tagay wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland kadib kormeer uu madaxweynuhu sheegay inuu ku mari doono laamaha dawladda waxaana halkaasi ku soo dhaweeyay wasiirka caafimaadka Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Maxamed Cabdi Xergeey waxaan ugu soo dhaweynayaa shaqaale u heelan inay waddanka u shaqeeyaan inay hadiya habeenba ay caawiyaan dadkooda bukaanka cudurrada hayaan waxaan kugu soo dhaweynayaa wasaarad isbedel cusub uu ka muuqan doono insha Allah taala aan isku day doono inaanu himiladii aad ka lahayd inaanu hirgelino intaasi kadib madaxweynaha ayaa halkaasi kala hadlay baxda caafimaadka oo uu sheegay in mas'uuliyad weyn ay ka saaran tahay ummadda maanta halkan waxaan ka bilaabayaa kormeerka hay'adaha dawladda oo dhan waxaan u doortay caafimaadka inaan ka bilaabo bini'aadmigu haddaanu caafimaad qabin waxaa ma qabto wasaaradda caafimaadka waxaynu ku maamulaynaa marka hore dad aqoon leh loo keeno oo inoo hirgasho insha Allah tan labaadna waxaa ku xigta inaynu barnaamij aynu meel ku gaadhno samaysano qaran ahaan waxaynu samaynaynaa sharciga dawooyinka dalka wasaaradda caafimaadka waxaa laga rabaa aqoon dadkeedu inay shaqada ay ummadda u qabanayaan shaqooyinka kale way ka duwan tahay kuwa kale waa laga soo kaban karaa qaladaadkooda laakiin qaladku dhakhtarka uu gala ama neers ama laboratoryga ama umriso laga soo kaban maayo qof baa ku dhimanaya ama ku naafoobay daa kasta ahow mushaaharaha qaadane duruuf kasta qab cara kasta ku soo toos hadda ogaada ilaawad kula xisaabtamayaa ummaddan waa haysa midna qarankay saaran taadoo qofka mas-uuliyadda haya ee isagoo hurda soo kacla leeyahay qarankan lagu leeyahay inay mas-uuliyad iska saaraan daryeelkooda iyo xuquuqda iyo karaamada ay mudan yihiin taana waxa lagu leeyahay qaranka geesta kale madaxweynuhu waxa uu ka hadlay dadka ay dhaawacyadu ka soo gaareen dirirtii maalmihii la soo dhaafay labada beelood ee ood wadaagta ku dhaxmartay degmada Daraweyne ee gobolka Sanaag waxaana uu ugu baaqay inay dagaalka joojiyaan madax dhaqameedka Soomaaliland sidoo kale iyagana waxa uu ugu baaqay inaanay bulshada kala qaybin waxa dhibaatadu soo gaadho halka ay la dhaawacoodi laba dad oo walaalaha isku leenaya ganaca cirafeen argaab Sanaag dagaalkaas waxa lagu soo gaarnaa isu tulimaayaan nasibar wixii dhibaatada soo martay ما جت الحين مالك قرى لحسا عدد بيوتي لسوقاري كنتم بما شاء راوعة والمرة إن بي كم دولار سقطوا وحلقات كلمة إنه قبل ناوي بهاي نار مصلحات قبل الأساسية هشيز سرد من المحتر لما تين وحسوي كذا إنه مسؤول تكنوه إنه قعما كح قم كنا شغال وهاي حتى يجي استوى يا رب استوى توح لا يفهمه كم كان بعد ويسان إلا نادنا إلى الناس يدي ونقول دي مقاطع مركز الخير استلام ما حدا قناة السودان كي يعمل كي وضع على تركيا هذول وضع ولا وضع يا رب يطبق أنا والله ولا بقى بريني سيبنا يلي ورد يقول لفتول وين يسوان يلي واسقطه وحنا لا حدا قناة كنا كل يوم ما يسان شرف هذا السياسي وضع في الإسلام يا طوال وضع يا رب يا بين قبنا ياسر دور صلاة نقول ما يسان في الدول نقول يسان مركز السودان كان ضياع الإعلامي في رأي يقول إلى عرب madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu ka jawaabay hadallo uu sheegay inay ka soo yeedheen gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro gudoomiyaha Cabdiraxmaan ee wadani laba goor hadlay maalintii uu dhiibay baa hayay wiilku waan ogolahay natiijadii wuxuu yiri umiyaha ka yiri uma tanaasulin ninkaan tartamayay uma tanaasulin xisbiga loo tartamayay qaranka loo tanaasulin واسكور هذه قال كيلو تنسي حكم قبل لكن بر هذا دي وبار قانون كسياسة دو هذا قف كيلو تكتبه أنا تناسلي حزب جاء أنا تناسلي يا تناسوش إلى ذات كي برا مكرم مركز يتاجر سنة تي حزب جاء كمان ينك كده دكتور والله مركز بشيء بقيمة عرضي تي إن سوى داية وحنا سوى إنه مركز عرض تعرض ولا برياه كسر نكتب الحزب وطني يقدمه لقطة كقلو إلى هذا الموضوع ده براد مركب واحد عام أنا حالتي نكود وهجية نك وهرية تلفون ده مركب دار عشان عاد يسوق على عبد الرحمن بوه ده حزب وطني وحنا وهرية حزبية تسكتوا أي عاديه جامعية قبل ده ركب حالنا مشاكل ولا إنه حلنا تسكت ده رجل يستلم بدي كنت اللي قفلي إذا كمان في عنا لكن والله كلام يصير مركب احترامنا يداعي أنا أتأكد ولا ما وحصل معي قول وقت العيون صور خسارة كل المسلمين باترتين أو هذا بردها فريد وتجد دور مقاطع وحو كبرامي ولا لا ينظر شيء ولا هذا
سومينارين هابل تكنيك سنة ولا ريال كل يوم ما يهم وحنا حدي قاموس كسر صدق لجهره حزب الدورشة ولا حزب كان أماهي ومن معسوه على يسوع وحنصل ياهي أنا أقول ما قبل إلى ما سيدورش وحن قبل إنه تفترني سعد على لينو قيبيي تقدر لينو حبيي وحن ياهي حزب وطني وحن هتي لك عدالية وقال كلام شيء وحن أقول احترام وحن أقول وطرش وحن أقول قدرين أنت حزبي أنت لا ذلك يقول إن عندك جوتا ما أنت يبرتو ويوا يقدري سرير سارك دوتان أنا جاي شادي واساسا gabagabadiina madaxweynaha Soomaaliland ayaa ku baaqay in cashuurta lagu kordhiyo qaadka si kor loogu qaado dhaqaalaha war cashuurta kordhiyo baal khasaare mooyaane faa'iido ma keeneen dhaqaatiirta way ku daashay mid gaas tani qaatay mid waa soo dhaqo u baaray xashina waa wasaaran kor u qaada cashuurta wax yeelay iyo wax dhinacmaro kaale soo qabana way yiraahdeen waan isla degi doonaa dhaqaalaha waa kor u qaaday xaq baan ugu leeyahay ummaduna xaq bay u leedahay Saciid Aadan Jaamac Hon Cable TV Hargeysa